السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وواضح أدي هذا ومهتسنتهين maanta waa khamiis waana 24 bisha toddobaad ee July sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago laba wiil oo Soomaali ah oo ku dhawaad sanad iyo bar ka hor haweeney ku dilay gobolka Washington State gaar ahaan Seattle meel u dhow isla markaana mid ka mid ah uu Afrika u cararay oo Soomaaliya intuu tagay Kenya markuu ku soo laabtay Mareykanka iyo ciidamada Kenya ay ka wada shaqeeyeen kadibna gacanta lagu soo dhigay haddana dib loogu soo celiyay Mareykanka maxkamadna wajahaya haddaba maalintaasi meeqa dhacdo oo kala duwan oo dambiye ah ayaa labadan wiil oo dhalinyarada ay sameeyeen ka hor inta haweeneydaasi aysan dilin haweeneydaasi xitaa Mareykanka ma aysan u dhalan oo wadan kale ayay ka timid oo Mareykanka booqasho ay ku joogtay haweeneyda ay dileen bal arintaasi sida ay ku dhacday oo hadda maalmihii u dambeeyay soo shaac baxday ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo wargeyska Wall Street Journal oo shalay sheegay in wasiirka cadaaladda Pam Bondi ay bishii shanaad Trump ku wargeysay in Epstein Files uu magaciisa dhowr mar oo kala duwan uu ka soo muuqday arintaasi oo Trump uu iska fogeynayay iyo wasaaradda cadaaladda oo sameysay guddi soo baara madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama maxay yihiin waxyaabaha laga baarayana waan idila socodsiinaya balse marka sheekada labadan wiil oo Soomaalida ah waa sheeko la yaab leh Soomaaliya ayaan ka maqli jiray qof dilay kadibna wadanka ayaa laga dhoofiyay laakiin hadda Mareykanka ayaa dilkan ka dhacay qofkan Afrika ayuu aaday Soomaaliya ayuu muddo joogay Kenya ayuu yimid dowladda Kenya ayaa lagu sii wargeliyay labada wadan ee Kenya iyo Mareykankana waxa ka dhaxeeya heshiis oo wax isku dhiibis ah oo hadii qofku dambi labada wadan midkood uu ka galo in ay isku dhiibi karaan waxana heshiiskaasi wada galay Mareykanka iyo Ingiriiska bishii May 22 sanadkii 1931 laakiin sharcigaasina Kenya iyo Mareykankana waa uu ka dhaxeeya oo waa isku dhiibi karaan qofkii dambiye kala duwan sida dil iyo musuqmaasuq iyo waxyaabo saas ku kacay isla markaana labada wadan midkood u soo carara wadanka kale waa uu dhiibi karaa haddaba arinta labadan wiil sidee ku dhacday sidee soo ku bilaabatay horta arintan waxay dhacday 26 bishii koobaad ee January sanadkii 2024 waa sanadkii hore hadda waxa ka soo wareegtay sanad iyo barka badana ka soo wareegtay labadan wiil markaasi da'doodu waa ay yareed da'dooduna waxay kala ahayd 8 iyo 10 iyo 9 iyo 10 ay kala ahayd waxa la kala yiraahdaa Ilyas Maxamuud Cabdi iyo sidoo kale wiilka kale oo la yiraahdo isagana Salman Xaaji oo 19 jir ah Ilyasna 18 jir ayuu xilligaasi ah marka maalintii oo 26 January ee sanadkii 2024 sagaalkii subaxnimo ay howlgalkooda bilaabeen gaari yar oo Honda Sedan ah ay wateen gaari kale oo haweeney wadato oo Porsche ah oo SUV ah gawaarida qaaliga ah ayay gadaal uga dhufteen gaarigii haweeneyda ay watay ay midkooda qaybta dambe ee bambarka ay jug uga siiyeen inta badan arintaasi waa ay dhacdaa dad doonaya inay ku dilaan ama ay ku dhacaan shil ayay ka dhigayaan gaarigaada ay gaari kala gadaal uga dhufanayaan marka aad soo baxdana waxa la doonayaa in lagu dhaco ama lagu dilo marka arintaasina waa ay jirtaa hadii qofku uusan soo bixin ka digtoonaa inaad marka hore bal ogow gaarigan kugu dhacay ma accident ama ku talagal ayaa loo sameeyay arintaasina waa ay dhacdaa marka gaarigoodii ay wateen Honda Sedan-ka ahayd ayay gadaal uga dhufteen gaariga Porsche-ka oo haweeneydan ay wadatay mid kamid ah ayaa soo baxay oo ah wiilkan Salman Xaaji isagu gaariga ma uusan wadin markaasi waraaqa ayuu gacanta ku waday qoftii haweeneyda waxay istir marka qofkan shil ayaa gasheen waxa doonaysaan caymiskii gaariga inaad isweydaarsataan iyo leesanadii markii ay isku dayday inay soo baxdo ayaa daaqada passenger-ka gaarigeedii uu soo istaagay waxana uu yiri Ken waxyaabaha aad hayso qori ayuu bistoolad ayuu qoorta uga qabtay waxaanu yiri lacagta furaha gaariga iyo credit card-kaada soo dhiibiyay wixii lacagada hayso gaarigii ayuu ka dajiyay isaga ayaa ku dhacay kii kalena gaarigii kale ayuu ka soo daba kaxeeyay sidaasi ayay isku soo daba galeen marka gaarigaasi oo ay soo dhaceen Porsche-ka 9kii subaxnimo ayay howshoodu ay ku bilaabatay marka police ayaa waxa uu arkay labadan gaari oo si aan loogu talagelin wadada la yiraahdo Mercer Road ayagoo I5 ka ku sii socda ayuu arkay labadan gaarina ay si xooli ay ku socdaan isla markaana booliskii waa uu daba galay waa uu ku shitay booliskii kadibna way ka mirqadeen
oo booliskii waa uu arki waayey markaasi kadib markii waxa ay tageen maadaama ay credit card soo dhaceen gaarina ay soo dhaceen gaarigii number plate-kii ayay ka fureen taargadii ayay ka fureen qaybta dambe ee trankiga ayayna taargadii ay geliyeen maadaama gaarigan gaari ay soo dhaceen uu yahay haweeneydina isla markii waa ay report gareysay oo 911 ayay wacday waxayna sheegtay gaarigeedii in laga dhacay labadaasi dhalinyarada oo madowgana ay ka dhaceen gaariga meesha ay ka soo qaateen waxa la yiraahdaa wadada 9 Avenue West iyo West Highway Street oo ku taala Queen Anne neighborhood kaasina ay gaarigaasi markii hore ay ka soo dhaceen haweeneydu marka isla markiiba booliska ay arintii ay u sheegtay booliskuna markaasi kadib waa kuwii arkay iyagoo wadada Mercer Street iyo sidoo kale I5ka in gaarigaasi ku kaxaynaya markaasi kadib boolisku waa uu ku shitay waa uuna qaban waayey markaas kadib waxay imaadeen maadaama credit card ay wataan dukaan la yiraahdo QFC ayay imaadeen dukaankaasi oo ku yaala Normandy waxaana sidoo kale ay tageen la arkaya sida sawiradan aad ka aragtaan iyagoo lacag kala baxaya ATM isla markaana dukaanka ayay galeen ku dhawaad muddo 30 daqiiqo ayay ku jireen gift card ayay soo iibsadeen oo lacagtii gaarigay ama harkii ay soo dhaceen ay ku soo iibsadeen markaas kadib ayaa waxa ay bilaabeen in haddana ay waxyaabo kale oo ay dhacaan ay raadiyaan marka kaamirooyin ayaa ku xirnaa marka ay dukaanka QFC-ga imaanayeen sida aad aragtaan waxa la arkayaa iyagoo ATM-kii joogo gaarigoodu meesha oo marayo waxaa qabanaya kaamirooyinkii dukaankaasi ku xirnaa markaas kadib baarayaasha arintan baaritaanka ku sameeyay waxa ay sheegeen in gaariga boojka ah mar kale la arkay isagoo kaasko ku taala Tukwila yimid markay ahayd saacadii 4 saac iyo 40 daqiiqo oo subaxnimo ayuu yimid markaas kadib laba haweeney ah oo indhayar ah mid kamid ah Shiinaha ay ka timid haweeneyda dhimanaysaba familkeeda Washington State ku nool ay u timid si ay booqasho January-daas ay ula joogto marka kaaska ayay ka soo adeegteen alaabtoodii ayay gaarigooda gashanayeen marka alaabta iyagoo gaariga gelinaya ayaa labadan dhalinyarada mar kale imaanayaan sida arkaysaan iyagoo gaari wato waa ay dhaafayaan kadibna waa ay ku soo laabanayaan gaariga boojka markaas way soo xadeen oo bilaa taarga la'aan waxa kaxaynayay Ilyas yarkan Salmaanna passenger ayuu ahaa oo kursiga passengerka ayuu fadhiyay markaas kadib haweenkii markii ay gaariga galeen oo ay doonayaan inay baxaan maadaama ay adeegteen dukaanka ayaa Salmaan Xaaji uu degay daaqadu iska furay haweeneydan dhimanaysa oo la yiraahdo Yuan Meng oo daaqada passengerka saarneed ayuu doonayay boorseedii inuu ka qaato gacanta oo ay kula dhigtay xitaa walaasheed ayaa isku dayday inay caawiso hal xabad ayuu xabadka uga dhuftay halkii xabad ayayna u geeriyootay kadibna meesha waa ay ka carareen iyagoo aan qaadanin boorsadii ay doonayeen inay qaataan maadaama gaariga dil ay ku geysteen gaarigan ay soo dhaceen gaarigii markii dambe waxay uga tageen meel kaniisada agteeda oo la yiraahdo Testament Church halkaas ay uga tageen gaarigana waxay ka saareen cagasaaradii labadan laba nooc xariifiin ay ahaayeen oo hore ay wax u dhici jireen sida aan filayo marka cagasaaradii ay gaariga ka bixiyeen laakiin waxay hilmaameen gaariga taargada markay ka furayeen in farihii lagu arkay waliba yarka Ilyas ayaa ka furay ayaa la leeyahay taargada oo farihiisa ayaa laga helay Salmaan Xaajina daaqada passengerka ee gaariga boojka ay xadeen ayaa farihiisa isagana laga helay sida ay baarayaashu ay sheegeen waxa dhacday 4 maalmood kadib markii dilkaasi ay geysteen in Salmaan Xaaji 30 January sanadkii 2024 isagoo Kings County booliskaasi sheriffka ay istaajiyeen isagoo Honda Civic wata C-Tag waxana boolisku markaasi uusan ogeyn ninkan inuu yahay in looga shakisan yahay in dilkaasi uu geystay gaarigiisana waxa la arkay in damage uga yilay qaybta hore maadaama gaariga boojka markii ay ku dhufanayeen ay damage halkaasi uu ka soo gaaray markaas kadib boolisku waa uu istaajiyay mana uusan ogeyn ninkan in la raadinayo sidaas darteed waa uu iska sii daayay ticket ayuu jartay marka 1 February sida aan cadeymaha ay muujinayaan 2 maalmood kadib markaas boolisku istaajinayo 1 bishii 2 ee February sanadkii 2024 ticket ayuu jartay Africa ayuu aaday waxa leeyahay Soomaaliya ayuu soo joogay muddo waa lagu hilmaamay ayuu Israel Mareyna marka waxa ku soo laabtay Kenya FBI-duna waxay la xiriirtay booliska Kenya markii dambe waxaan filayaa airportka ayaa lagu qabtay waxana la keenay todobaadkii hore Mareykanka halkaasi oo dacwadihii dilalkaasi uu ku mari doono waxa dhacday sidoo kale yarkii kale Ilyas Maxamuud Cabdi isagana
waxaa la soo xiray 16 bishii May ku dhawaad 4 bilood kadib markii dilkaasi ay haweeneydaasi ay u geysteen waxaana loo soo xiray dil heerkiisu yahay midka koobaad oo lala xiriirinayo in wiil yar oo teenager in Kent lagu toogtay February 21 marka waxaa la leeyahay gaari uu waday yarkan Ilyas Cabdi ayaa waxa ay gaari kale isku ciirsanayeen wadooyinka Kent waxaana gaariga uu saarnaa rasaas ka soo ridayay dhalinyaro la saarnayd waxaana rasaastaasi ku geeriyooday wiil la yiraahdo Maxamed Amiin Faarax oo 17 jir ahaa waliba Faarax markii uu dhaawacmay gaariga ayay kula carareen waxayna geeyeen isbitaal waliba waxa la arkaya Leeri Cabdi oo albaabka emergency-ga garaacaya maadaama ninkan uu dhaawaca markii dambana dhaawaci ayuu u geeriyooday toddobaadkii la soo dhaafay marka ayaa Ilyas Cabdi 1 milyan oo damaanada ayaa lagu soo dayn karay laakiin markii lagu soo oogay dacwadihii haweeneydii indha yartayd oo ay dileen waxa damaanadiisa laga dhigay ilaa iyo 6 milyan oo dollar Salmaan Xaaji isagana hadda waxa uu ku xiran yahay xabsi ku yaala Kings waxaana isagana damaanadiisa laga dhigay ilaa iyo 5 milyan oo dollar marka labada nin sida muuqata dambiye kala duwan ayaa hadda lagu soo oogay waxaana ay kala yihiin dambiyadaasi lagu soo oogay in ay dil uu heerkiisu yahay midka koobaad oo haweeneydii ay dileen dhac oo ah gaarigii ay soo dhaceen oo waliba dhac heerkiisu yahay midka koobaad iyo isku day dhac oo haweeneydii ay dileen boorsadii ay doonayeen inay ka dhacaan oo isaguna dhac heerkiisu yahay midka koobaad ayaa lagu soo oogay waxaana raggan sida muuqata horay ay u soo geysteen in dambiye kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay horay wax u dhaci jireen isla markaana xitaa juvenile detention ay soo mareen oo dambiye badan lagu helay iyagoo intaasi ka da'yar isla markaana sidoo kalena baabuur xadis iyo dukaan alaabo ay ka dhacayeen iyo baabuur xadis iyo waxyaabahaasi dhan ay ku eedeysnaayeen marka labada nin hadda waa ay xiran yihiin maxkamad ayayna sugayaan ay waliba kii Afrika aadayna dib ayaa loo soo celiyay ugu dambeyntii wargeyska Wall Street Journal ayaa waxa uu shalay daabacay in wasiirka cadaaladda Pam Bondi ay ku wargelisay Trump bishii May ee 5 in Epstein Files magaciisa dhowr jeer uu ka soo muuqday laakiin wasaaradda cadaaladda waxay leedahay magacaadu inuu ka soo muuqdo ma ahan in dambiilo tahay maadaama Trump hadda arintaasi maalmahan ay si aad ah u socotay shalayna waxaana wanaag taliyaha sirdoonka qaranka ee tiri Obama waxa uu sameeyay khiyaano qaran doorashooyinkii sanadkii 2016 hadda wasaaradda cadaaladda guddi ayay u saartay soo baara dambiyadaasi lagu eedeynayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama waxaana guddigaasi loogu magac daray strike team oo iyagu baaritaan ku sameyn doona waxyaabaha kale ee soo kordhay haddii alla idmo waa idila soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaayo nabadgelyo